waxaan rabnaa inaan wax ku ogaano gabaygan wadaniga ah oo aad iyo aad cajiib ku ah oo gaaban xalimo soofe maadaama aad ka mid tahay abwaanada Soomaaliyeed ee aadka loo qiimeeyo wax ma noo sheegi kartaa waxyaabaha kugu dhaliyay in aad tixdaan yar aad maantay noogu luqayso gabagan madedna ujeedada aan ka leeyahay waxaa weeye Soomaaliya qaran sharaf leh oo muuqda oo caalamka ka mid ah bay ahayd waa la burburiyo qabiil iyo qurun iyo waxa lagu burburiyay cadaalad darro iyo maamul xumo maalinba maalinta ka dambaysa ayaanu rajo qabnoon lahayn way ka soo noqon doonaan khaladka ay galayaan ummadda Soomaaliyeed marka waxa muuqatay inay si furfurayaan oo si baabi'inayaan tuulo waliba madaxweyne samaysatay oo madaxweynihii iyo ninkii kala isaysto kii kale iyo kii kala isaysto kii kale sidii dumar la isla qabo way sududahayaan baan hadda ka hor iri marka waxa weeye waxa igu dhaliyay waxa weeye aaya xumada iyo garasha xumada ummadda Soomaaliyeed waliba ragga Soomaaliyeed ka muuqata oo maanta masraxa ummadda Soomaaliyeed taagan matalaya buraanburkan aan hadda tirinahayo maantay ma aha buraanbur aad u badan hase yeeshee ujeedooyin badan ayuu leeyahay cid waliba siday rabto ha u akhrisato dhurwaayada weerarka oo dhallaanka cuna oo dhurwaayada weerarka oo dhallaanka cuna dhidaradiyo ubatada dhanka loo dersaday dhacdooyinka maanta dhaxaltooyadeeda daya dooli iyo songur dabagalayaasha shiran war dooli iyo songur dabagalayaasha shiran oo dameer farowgiyo gesida badida dayacan duurjoogtaas muusikada dartay dananka badan runtii ka dayowday maciid bay ka dahan tahay good abees iyo gungume gobku wada xaniman oo good abees iyo gungume gobku wada xaniman masasku gaaf meedha oo dhowra oo gabada oo jilbisya guureeyo sahankoodu gooni yahay sunta miciida gaarto gawrirta ma ayan garan siyaasadan goobato garda duuban sawgala Soomaali raggeedi ka subxaanallah nu nire oo Soomaali raggeedi ka subxaanallah nu nire oo xishoodka ka saqleeyay ka subxaanallah nu nire sayde sharafta sayrahayo ka subxaanallah nu nire imanka laga siibay ka subxaanallah nu nire sideetan madaxweyne ka subxaanallah nu nire oo Soomaali waxu tarinin ka subxaanallah nu nire nul siro sifir ebera ka subxaanallah nu nire Soomaali raggeeda ka subxaanallah nu nire oo Soomaali raggeeda ka subxaanallah nu nire hinaska sameeyay ka subxaanallah nu nire saygoodi garan mayno ka subxaanallah nu nire wanaaga sareeyay ka subxaanallah nu nire nabad on soo dhawayn nabadda ka subxaanallah nu nire khilaafku isku saloolan ka subxaanallah nu nire sideetan madaxweyne ka subxaanallah nu nire on Soomaali waxu tarinin ka subxaanallah nu nire nul siro sifir ebera ka subxaanallah nu nire Soomaali raggeeda ka subxaanallah nu nire oo Soomaali raggeeda ka subxaanallah nu nire oo silonaantooda ka subxaanallah nu nire salalayo waasho ka subxaanallah nu nire sideetan madaxweyne ka subxaanallah nu nire oo Soomaali waxu tarinin ka subxaanallah nu nire
نول سيرو سفير أبرك سبحان الله نونره waa hagaag weeye maadaama ay ummadda soomaaliyeed nasiib u yeelatay maanta inay kula dhegaystaan gabaygan wadaniga ah oo ay dunida dacaladeeda kaa wada daawanayaan ma laga yaabaa inay ummadda wax ku qaataan mise leedahay gabaygani wuxuu wax ka qaadanayaa dib u soo celintii ummadda soomaaliyeed markaan runta u hadlo ummadda soomaaliyeed ma ahayn shacabka soomaaliyeed shacab fiican buu ahaa dad badan baa qaran jecel dad badan baa nabad jecel dad badan baa wanaagga jecel dad badan baa samaha doonaya laakiin danaystayaal rag danaystayaala ayaa ku danaysanaya oo kala durkinaya oo kala fogeynaya oo aan qiimeynayn dal iyo dad iyo calan iyo ciid iyo ummad midna aan qiimeynahaynin marka duulaan qabiil bay ku furfureen dabadeedna sagxad bannaan bay soo istaajiyeen maanta waxaan idhi tixdan tix ka horreysay waxay ka mid ahayd duulaankii qabiilka fidmaaday darfahahayeen oo duulaankii qabiilka fidmaaday darfahahayeen waa tasabaardeerata adonya loogu raray dadkaniya shacabkiiba meel daleela toban waa isdhelayaan oo xabad bay la doolayaan dariiqii nabadda maristiisiba ka dadan sidee dumar la isla qabo way sododahayaan ee goorma raggan loo diraya maxkamad degdega dalka burburay qaranka dumey dayac wixina helay dumarkii soomaaliyeed howlkarnimo dogsade daryeelkii nolosha iyo dafac bay galeen ee goorma raggan loo diraya maxkamad degdega intoodii debedda timeed wow ducayn hayaa waa haweenka oo intoodii debedda timid wow ducayn hayaa daryeelkii nolosha iyo dafac bay galeen dabeecada adagoo adag bay la soo darseen daryeelkii gurigu hawshiisu durugsan tahay haweenka u dirano ragga waa ka daahan tahay dalkay joogaana shaqa looga dhigay dulsaar iskuullada kama dambeeyaan waa u diyaar quraanka ay ubadka u deeran darfahayaan diinta islaamka ay bartaan daacadna u yihiin dalka gacmaha loogaha jirko waa damqanaya ee goorma raggan loo diraya maxkamad degdega kuwa dalkee jirayna dayac bay u dhimanhayaan oo kuwa dalkee jirayna dayac bay u dhimanhayaan oo dabaylaha iyo bannaankay u daadsan yihiin oo daryeelkii ubadkay xamaal duudka ugu raraan oo dariiqyaday shaah ku kariyaan daleel bannaan oo hub lagu darandooriyaya dubtoo la taga oo qarba la dalabay nafsado badaha ku degay oo qarba dirsanteenna ugu dadsan nolol dayacan ee dambiilayaal weeye raggo waana ina dayacay oo dalka xalkiisa ayan doonayn inuuna dangelin oo sidii dumar la isla qabo way sododahayaan oo dariiqii nabadda maristiisiba ka dadan ee goorma raggan loo diraya maxkamad degdega raggoo dhan marka ragga boqolkiiba waxaan ka soo qaatay 8 fiican oo wanaagsan oo sharaf leh boqolkaas waxaa weeye waajibkoodii bay guteen intii kalena xashiishkan ku daray intee ka badbaaday cudurkaas raggee barkaday oo intii ka badbaaday cudurkaas raggee barkaday oon ka bayrin dariiqa runta beentu waa xuntee ee ma wada babeene boqolkiiba waa 8 ba waajibkoodii bogtayoon baylah reerkii noqon oo mudan bilada loogu tolo ballihiya garbaha
قربان بران واجب که باقی گودو درائی او قربان بران واجب که باقی گودو درائی او قربا وبد كودي لغا بوباي ميل بنان او قربا بنان نادا علين شاكو بايا تاما او قربا بوريغا خمريغو بباشو لتغي او قربا نعس بافيو بودا دا اسكامودا او قربا بهوتك نقدين قالدي بركود وقرب بدلي دقن كي شرف كينا بهال كوريدي يا الله كبد باري عذور كرقي بركاي